marka iftiinkiisii banaanka shawdka ah uu yaraanaya wasaqdan markay saas ugu hareerooydo qalbigii yaraay maskiinka ahaa ilaahay ugu talagalay in lagu cibaadeysto wanaag lagu fikiro oo horumar lagu gaadho saas buu madoobaanaya qalbiga marka haduu nadiif yahay wuxuu noqonayaa mufakkir qalbi fikiraya horumar ka fikiraya ganacsi wax barasho qofkan walaalka maxaa ku soo kordhisaa aakhirada maxaa ku soo kordhisaa islaamka maxaa ku soo kordhisaa bi'ada adig kugu hareeraysan maxaa wanaaga ku soo kordhisaa waa markuu qalbigu saafi yahay laakiin qalbigan markuu wasakh yahay hebla ifiirsay hebla wada hadlay ana ii jeedeen tashwiish baad qabtaa frustration balaayo shaydaan baa ku khiyaaraya ha fiirso ayuu ku leeyahay adigina waa sii fiirsanaysaa nacam waa run ayaa taagan tahay waxa kale marka qalbigan wasakhda qalbigan ka buuxda ayaa waxa kale ku diidaysaa cibaadadii ilaahay wax samee baad isleedahay maanta waad yara istighfaarsatay 100 mar tusbax baa soo qaad astaghfirullah wax yara dhaqmaaya wax yar ayaa iftiin aan noqonayso banaanka u baxday waxaad sameynaysaa balaayo oo dhan wataas hadana intii yarada maanta aad nadiifisay way ku noqotay qashinkii marka maxaa ziyaadsatay adoo waxaad isleedahay sadaqaan soo bixiyay ehelkaygi baan maanta wax u soo taray intaas oo dhan baa nadiifoobays allah ya ehelka qaraabada raximka ilaahay quraankiisa in badan buu uga hadlay waxbaad soo tartay intaas nadiifowday marka banaanka qof baad sarkiisin kanaan diro kanaan sameeyo kii kalo waa sheegtay ikhlaas kuma jiro ay ku noqonaysaa dhac oo jeedin Soma ya hooyadaba iyo aabaha u baar sameysay laakiin wax yar niyada ka dhibsatay ee baaba'aysa maaha kaliya eragaad ku hadashay inma al-a'malu binniyat oo rasuulku alayhi salatu wasalam a'maasha dhan waa niyada niyadaada xitaa dad xumaato ku fikirtid meesha waa soo galaya qalbigan marka nuurkan ilaahay kugu dhax abuuray ayaa xadiis ayaa ku soo arooray rasuulkeena alayhi salatu wasalam oo inoo sheegayo qalbiga qaabka hadii uu wasakhobo jirka dhan ay uu wasakhobayaan haduu qalbigu caafimaad qabana jirka dhan uu caafimaadayo xadiiskaas ayaa marka wuxuu yahay macnihiisa la hor dhacay ألا وإن في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد الكل وإذا فسدت فسد الجسد الكل ألا هو يا وهي القلب ألا هو يا وهي القلب رواه البخاري ومسلم لبعض إمام أبوه وين المحدثين تأيا وريه مركا أنت مركا وسخودو ما قلبي جنب بس هكا وسخوبي ما يا جسمي جدا إذا صلح الجسد الكل وإذا فسدت فسد الجسد الكل جركي دم بعد خرمي wuxuu noqday jir problem hayo problemka marka jirka haya wuxuu yahay maskaxdi buuq iyo shaydaan ba ku shidan way huraysaa jirkii dhan ba qandho dareemaya hurdo la'aan dareemaysa wareer ba dareemaysa waxaad qaadaysaa uqdad dadka dhan waxaad ka qabtaa ana liiga sheekeynay ana liiga hadlay maya ana lii amaanay allah khatar baan ahay maya ana dadka ugu fiican ana ba jiraba maskaxdi yareed marka jirkii bay caafimaad daro ku ridaysaa systemka jirkaaga u shaqeynaya marka waxa ku dhacaya khalkhal maadaama maskaxdii daaqad ka weyn oo lagu talagelin aad gelisay frustrationka marka waxay noqonayaan stress baad qaadaysaa stresska waxa ku xiga frustrationki depression isku bedelaya ilaa marka dambe aad u baahato dhakhtar intuu ku wareysto wixii caafimaad uu ku sheego ama qof ehel ka naxayo ku jecel oo waxan ba ka khaldan umada ka fadhiiso sadaqadaadii iyo naahoy dadkii waa wareersay dariskii waa wareersay ninkaagii waa wareersay ilmahaagii kaama cunaan kaama cabayaan ma tarbiyanays waa lagu sheegaa runta waa fadhiisan shukaansiga inaad ku jirtid ma fiicna daawad isku disho jirkaagii baa waa lagu talinaya marka lagu taliyo ayaa talada ugu wanaagsan ee meeshan ka bixinaa waxay tahay cibaadada ilaahay inaad xaasibu anfusakum qabla an tuhaasibu maxaa iga khaldan bal isweydii naftu waxbay diidaysaa adna waxbaad ku riixaysaa naftu waa loolanbay ku jirtaa waxay ku leedahay iga daa adna waa qasab waa gelinaysaa marka de qofkii baaskiilka wadayay hadaa tahay oo baaskiilkaaga si fiican oo nashidaal ugu jirno adigana aadan tababarnayn horay gadaal dhac dhulka accident aagay laakiin markii aad tababaran tahay marka waad xisaabinaysaa waa fadhiisanaysaa waxana iga khaldan friendska igu badan asxaabta igu badan xaasidnimada igu badan wallahi waa inaan arinta shaqo ka qabtaa
shaqada la qabanaya marka waxay tahay tusaalo nasra ayaa ila joogta nasra ayaa marka nasra hadaan idin baro nasra khalifa la dhahaa waa gabadh yar oo ardayda ilaa high school soo gaadhay tababar badan aan siiyay iyada marka tusaalaha isla sameynayna maskaxdana waxbaan ka weydiinayna maskaxdan yarta marka waxay u baahan tahay horta iyada inaad nadiifisid hal mar maasa u nadiifinaysaa inta soo qaadid kala ma noqonayso kun jeer haddaad dhahdo waa nadiifinaya waxbaa ku celcelinaya laakiin step by step nasra soo istaag marka nasra ayaa marka cashirka isla sameynayna example-kii koobaad waxaan idin tusiyey nalka markii oo maskaxda ay qurunto meeshan dhan inay madow noqonayso madowgaas marka maskaxdii way rarantay way daboolan tahay waxaa daboolay qashin xasidnimadii xiqdigii maseerkii qofka walaalka inaad wanaagga ilaahay sii u quri weysid qofku ilaahay karti iyo talent u dhalay inaad u quri weysid qofkii markastaba inaad isku daysid inaad tala weydaarisid ama wuxuu haysto inaad ka xasidid oo xoolihiis inaad ka khasaarisid ilmihiis inaad ka tarbiya xumaysid gabadha gurigeeda iska degan oo gurigeeda iska dhaqanaysa been intaad u sheegtid inaad tala weydaarisid ama haddaad qof waxtar la tahay markastaba faan iyo waa leydi iyo anaa kana inaad ku faantid ama qof xam badan inaad tahay ama qof cay badan inaad tahay ama qof nasabka caynaya inaad tahay ama qof hantidii dadka cunay inaad tahay ama qof qarankii dhacay inaad tahay ama qof dilay inaad tahay waxaas dhan marka waxaan dhahnay maskaxdii ayay dabooleysaa maskaxdii ayaa waxay ka dhigaysaa madow marka bila kan waan idin tusay nalku siduu u ifayo marka kalena waa u jeediin wali iftiin baa ku jira laakiin markii la damiyaa la garanaya tusaale kale marka tusaalaha labaad maskaxdan inay nadiifowdo ayay rabtaa baan dhahnay markii la nadiifinayana hal mar lama nadiifinaye tartiib ayaa loo nadiifinaya tusaalaha labaad ayaa waxaan isku soo qaadanaya tusaalaha nalka iyo tusaalaha nasrona waan idin sheegay soo maaha marka problem baa ku haysta ayuu nooca noqdo ama frustration maseer inuu dooni ha ka soo galo waa daboolmaysa adiga dhan gab nasraan weydiinayna waxay dareemayso nasra dadka maadan salaamin assalaamu calaykum dheh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaad joogtaa 5 Somali TV aad joogtaa mushkilo kale weyn ay imaada tan yar adoon xalinin oo leedahay saan waa kan waa excuse aad sameynaysid ayaa waxaa imaaday mushkilo ka weyn oo ka culus gab oo daboolmaysa oo dhodkan idin tusay waay adigoo haddana cabaar joogtid oo kan kii hore khafiifka ha qaadi kari waa ku culusa ku soo darsatay haddana waad imanaysaa mushkilo kala imanaysa adigi dhan waa daboolmaysaa nasra saan yara dhaya soo adna qaska u heshid waa daboolmaysaa waad aragtay dharka markii la uunsinaayo inta bahalka idanka hoos laga geliyo bahalkii dharka lagu kor guraa markaas qiiq ah ka baxay waa aragteen saas camal hadda nasra qiiq bay dareemaysaa waxaan dhan marka waxay culeysiinayaan way badan yihiin wax badan ma soo qaadi karo tusaaloon baan idinka wadaa waxaan dhan waxay culeysiinayaan maskaxdii bay culeysiinayaan culeysku marka uu kala duwan yahay kana saar uu kala duwan yahay marka culeyska suu u kala duwan yahay iyo qaabkaad u kala xalin doontid iyo qaabkaad u kala qaadi doontid waan sharaxaynaa kan marka waa xadhig way dabran tahay marka nasra way dabran tahay gabadh markii la xalaaleeyo waa la xidhxidhaa soo maaha saas bay u dabran tahay nasra haye nasra tallaabo fiican ma qaadayso way xidhan tahay maxaa dabray marka waxaa dabray qashinkii maskaxdii daboolay ayaa iyada dhan culeys ka dhigay marka nasra waxay rabtaa hal mar inay tallaabo qaado oo xal gaadha ayay rabtaa laakiin hal mar xal ma gaadhi karto culeyskan dhan baa saaran markay is dhahdo tallaabo qaadba waxay noqonaysaa inay gadaal mushkiladii inay gadaal u jiido maskaxdii markaa qaabkii u caafimaadin lahayd problemka markaa nasro kor saaran garbaha jirka dhan haysto problemku kala duwan yahay midka familka midka ardayda midka macallimiinta midka shukaansiga midka ganacsiga midka shaqaalaha midka agaasimaha ama booska waan kala saari doonaa laakiin hadda maskaxdii ayaa waxaan u sharaxayaa si guud nasro marka waxay rabtaa waxaan dhan inay hal mar iska qaato haye nasro isruux hal mar ma kaa degaya si fiican isku wareeji ma degaayo ma u jeedin way dagaalamaysaa waxay rabtaa hal mar waxaan dhan intay jiido sidii maxaa la dhahaa de xawayaankee baan ku tilmaamaa hal mar inay booday rabtaa laakiin ma boodi karto haye foorarsa nasra wakaas labaa dhacay soo maaha haye kor xaggan kale
ma dhacayo ay geeska kale hay geeskan kale labadan dhacay baa markaa soo qaadaya labadan dhacay dagaal badan bay gashay Nasra way isruuxday soo maaha waa tusaaleya dagaalkii oo jigjigta ahaa maaha dagaalkii badnaa kadib Nasra waxaa ka dhacay labadan xabo ayaa markii la rabo markaa inay kuwan kale ay ku darto ayaa haddana mushkilo kale ay imanayso ku darmaysaa ama labadan mayna xoogeysanin labadan mayna ka sal gaadhin hal mar marka laba xaba isla soo dhacday xal ma gaadhayso waxayna xal u gaaraynin laba mushkilo hal mar saad ku xalisaa way adag tahay marka mushkilooyinkan garbaha ka saaran oo kugu hareeraysan waxaa la rabaa one by one step by step tallaabada ku xigta wax yar qalbiga inaad tirtirto see u tirtiraysaa marka number 1 tallaabada koobaad waxaan ku dhahay xaasibu anfusakum qabla an tuxaasibu meel fariiso isxisaabi maxaa iga khaldan waxaad qortaa 1 2 3 kow laba saddex inta dhibaato ku haysato markaad kow laba saddex waxaa dhahaysaa intana mushkilada ah teeba ugu fudud ma cibaadada iga khaldan ma hurdada iga khaldan ma dhaqaalaha iga khaldan ma xaraan baan ku jiraa ma malaayacni baan ku jiraa ma qiila waqaalan ku jiraa maxaan ku jiraa ma shaqaalahayga aniga isku dhacsan dhinacee maaniga odaygayga maaniga carruurtayda maxaa jira isweydii dhibka kow laba saddex dheh ta fudud soo qabso marka mato salaada subax on time ku tuko fadhiiso isxasili qasab nafta ma rabto inay tasbiixsato laakiin qasab istighfar salli nabiga kaleey salaatu salaam isku geege quraanka kugu adag hal sadar akhri kitaabka quraanka kala fur hal sadar ya bismillaahir rahmaanir rahiim qul a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim bismillaahir rahmaanir rahiim waa hal sadar way kugu filan tahay bari laba sadar saddex maanta adkaartii waxaad akhrisay salligii nabiga bari istighfaarti ku dar bari dambe maalinba in xasili usbuuci hal shay ka salgaan dadka waxa taa mar kasta waa waji macbuuska markii laga soo horbaxa waa laga naxayo smile kisto wax yar qosol sunnada rasuulka kaleey salaatu salaam waay wajiga furfuran inaad walaalka ku qaabilto qosasho farxad adigana caafimaad bay ku tahay maasalkan ay caafimaad u tahay markaad dhahdid exercise buu helaa laakiin marka maanta dhan san oo tahay maskaxdii waa ciriiriya ku jiro jirkii waxa isgalaya laakiin smile assalaamu calaykum iska soco iska tasbiixsan inta jirka socotid waxa marka ugu fudud mushkilooyinkan ku saaran xabadan soo qaad miiska saar arka waa la dhaqaa soo maaha kadibna waa la mujuujiyaa waa la wadaa marka dhaq mujuuji wad ma salaam step by step sanadkan dhan haddaad hal mushkilo xaliso noloshaada guul ayaad ka gaadhay laakiin haddaad ahdid hal mar baan guurayaa hal mar ba sorry waa xabiibtay hal mar baan wax kasta qabanaya maanta kanaan xalinaya berika maya tartiib hurdada waxaa seexataa 6 saac 7 saac maanta ka bilow inaad 7 saacaad seexanaysid 6 saac seexo isbuucan 6 saac ku wad habeenkii 6 saac baa seexataa isbuuca kale 5 saac ku wad isbuuca kale qaybta caafimaadka cuntada iyo la rabo jismiga inuu dhisto od caafimaad hesho maaha caafimaadkii jiimka la qaado jirka la dhisay ciic la dhahayo murqaha la soo bixinay maskaxdina ay eberkad ahayd maaha laakiin kii maskaxdii cibaadada iyo jirka isla socday qaybta caafimaadka cuntada iyo rasuulku wuxuu ka dhahay kaleey salaatu salaam iyo environmentigan ku jirna caafimaadkeedna waa caafimaad noocee ah waxaad igala socon doontaan isla halkan qaybta ku xigi doonta insha Allah cuntooyinka caafimaad kale waxaan ku soo bandhigaa YouTube-ka Mustabshir Haya Oil halkaas cuntada kala socda maxaa dareentay intii culayska oo ku saarnaa waxaan dareemay culayska intuu i saarnaa kulayl fara badan huur madax xanuun hadda inta ay saartay madaxa yara xanuune culays fara badan wax badan ayaan dareemay markaad maqashid mental health ama maskaxda caafimaadka qabta ama maskaxda jiran tee maxaa kugu soo dhacaya ana horta koow waxa igu soo dhacayso maskaxda aan cibaadada ilaahay ku badnayn maskaxda aan xuska rabbi ku badnayn oona rabbi aana xuskiisa ku badnayn inay keento dhib fara badan iyo frustration badan qalbi uu ilaahay ku xiran yahay cibaadadiisa ana waxa aaminsanahay inuu dhibka uu ka yaraanayo maadaama uu xuska rabbi uu meesha ay ku jirto okay walaalayaal cashirkii ku saabsanaa maskaxda qudunsan iyo qaabka loo nadiifinayo oo hab nololeed hoos imanayay oo 5 Somali TV ka baxayay
wixii aan asiibay ilaahay baa mahad iskale wixii aan gafayna nafteeda shaydaan bay kamid ahaadeen insha Allah wixii taliya tusaala commentigiina ayaa sheegi doona waxaan aan soo bandhigaynaa waxaan isleeyahay hal qof haduu ilaahay ku anfaco waa filillahi alxamdi jazaakumullahu khayr salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh